بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيب كمدة إيمانك بلادن oo iimaanka iyo nolosha aba iimaanku sidoo nolosha u saameeyo ayaa insha Allah waana ku sii dari doonaa. iimaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala faray aynu rumaysanahay usul al-aqaid al-islamiyya, tawxiidka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo risaalada rasuulka kaleey salaatu wasalaam iyo quraanka kariimka iyo kitaabka quraanka ah xaqnimadiisa. iimaankaasi aynu rumaysanahay waxa uu ina amraya in aynu u fahamno nolosha sidii Ilaahay u dhigay subhanahu wa ta'ala. hay nolosha Ilaahay baa abuuray, Ilaahay baa keenay wujuudkan iyo jiritaankan, khuluqaadkan bani'aadamku madaxda u yahayna Ilaahay baa ku abuuray. Ilaahay abuuray subhanahu wa ta'ala isaga ay noo tilmaamay qaabka loo noolaanayo. haddii markaa sidaa Allah sheegay aynu u noolaano oo iimaankaasi ina hago, waxa weeye adduunkana waa ku faa'iideynaa, aakhirana waa ku najaxaynaa, waana badbaadaynaa. haddii se aynu ka leexano oo meel kale aan ka raadino qaab nololeedka iyo horumarka iyo badbaadada, haddaynu meel kale ka raadino, waxa aynu nahay markaasi bani aadan amba makhluuqaad aan badan baynu nahay. dabeedna wixii nala kulmaa ee dhibaato ay inaga isu geysanay. سادرتين مرة بوحنا كنت صار قادنا هنا نرشة إنه وحنا كنت دبل قادنا هنا كتاب كإلهي يسنها النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وحنا وحكت المام بدونا عمل كي الشقة السيدة به كيتقان لقاها الله يوا الشقة لقبني وناتشين تيدي بالقاها الله يا لأن من هذه وحسار كيدي بالقاها الله. عملك iyo shaqada la qabanayo iyo iimaanka calaaqada ka dhaxaysa maxay tahay? quraanka kariimka sidoo uga hadlay shaqada iyo wax qabadka, miyay naga joojiyay, miyay na amray, miyay noo diray. Ilaahay subhanahu wa ta'ala isagoo tilmaamaya ruuxa wax wanaagsan qabta ee waxa uu qabanayo wanaajiya إنه أدون كنا معموس يوناك هليو آخرنا متكسي وين هليو. وإله القرآن يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. روحا ليما ذا الشقاء يعمل وناكسن من الصالحات وحي وناكسن الصالحة. عباداتك يا أصل ما أعمال صالح ما كان لقاها الله أيوه. عبادات إلهي لو قد وان أيوه. الطريق قد الراعية إخلاص له، اتباع له، ما يعني سيد الله لما يستري اتمام له أي عمل صالحة. وعكله سوق ليه وحي إلهي لقى بقي عمله إلهي سوي سبحانه وتعالى الله قبضته. روحي عمل لي مادة وناكسن الرجل دمر كودان وها هذا استجوا مؤمن نبي إلهي سبحانه وتعالى، هو مؤمن استجوا رميسن إلهي كتاب كيس يسنها النبي عليه السلام يدين تحققه. روحها سي عملك وناكسن يا إيمانك يا كمات يعني يقين تسكت الصدي. إلهي أبلغ قال سبحانه وتعالى نرشنا الدنيا إنه وناتشيه فلنحيينه حياة طيبة. نرونا أقسم بأن نورين يا بي إلهي إلى الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أبا الكود وناسنا وحنو كعب المرين دونا وحنا يخسقا قبتين ما أنت قيامها لقاب المرين دونا. مركا آيات هذين سلطاقنو إلهي سبحانه وتعالى وحاو أماني عملك هي شغلة بنادك وهي قبطان إنه وحلقبطه إيه إلهي نامره سبحانه وتعالى
waxa la qabanayaan in wax wanaagsan noqdo qaab wanaagsan loo qabto kalsooni iyo iimaanna lagu qabto iyo yaqiin iyo aqeeda rasmi ah inta hadii la isla helo ilaahay wuxuu ballan qaaday adduunkana inuu madaxa amalkaasi adduunyada la goosanayo oo adduunka lagu goosanayo lagu helayo nolol wanaagsan aakhirana abaalkeeda dii ilaahay dartii looga jeedo ilaahay ka aqbalo ay markaas laga helayo ilaahay subhanahu wa ta'ala dhinac kale ama aayad kale wuxuu inagu siiyay amar in la shaqeeyo oo shaqadaasna la ogaado in ilaahay arkayo subhanahu wa ta'ala wa qul i'malu baylahi wa qul wa hatta nabi muhammad i'malu shaqeeyo baylahi subhanahu wa ta'ala shaqa qabta fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون عمل قرتب إلهي الله سبحانه وتعالى وعمل كين هجاتي أو وناتي إلهي كبقى وأجاد بإلهي سبحانه وتعالى ليهي إن عمل كين إلهي أركيه وإذا كحساب دونه هدو ناسيه يهدو قلديه هدو ضاعديه يهدي خيانة كجرته فصير الله عملكم إلهي عملكنا وموجين دونا والرسول والمؤمنون أنتم ويركضونا وأنا الذين عندنا إلى عالم الغيب والشهادة إلهي سبحانه وتعالى سوح البؤوك وحي مقني وحي شوق بؤوك وأنا ذكاء بالمرض وحي شقيسين مكان لبضع آيادود ينصوص كلا فربضا وحي نكقادنا إنا الصلاحان دينتين وحي ديرين كلميسا شقضا إي عملك إلا الشقيو إلهي إلا عابده وشقه إلهي المؤمنين ضمها مورا الرمي أوكلية لكن إلهي وحو كل ما ني عمل نقبته الرمية لبعد نكو عمل فلما إلهي الله سبحانه وتعالى قرآن كان وحدكو أركيسا جنة مكا لقاها الله أيو إلهي وحو إسرائيل سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان يعمل صالح إن الشهادة غيرته هي إن الصلاة تكتاه من نوع يقين هي عقيدة من نوع عمل أدخل في السوء عقيدة هذه مكة لهذا كرار مكاس أنا أسكع الشهادة ياو صلاة تكن معيو صوم من معيو صدقة سكنة بحين معيو مسلم ما أسكع هانا يا إلهي كايل معي ويواجبات على الغفران مكان دين تنودين شقة هذا العبادة إلهي وشقة هذا هي عمل الدنيا أنا هي مصالح لنا الدنيا وشق إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وذلك سوى معتين أمرية إن لا شقته والذي جعل لكم أرضا ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إلهي ولكم واردين فضي لكم واردين هيبان إذا كان واردين دولي إذن مدي يدلكم مرة بين هاي الراعة والدنيا كذا أرزاق ذا إلهي دونت كسر شقيست لكن أوجادا إن إلهي هرتيسا هسكوي إلا بنا وإليه النشور إلهي وعنا أمر سبحانه وتعالى جمعها إن نوصل إلى الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله مكا إلهي نوقس على مقشان قيامات جمعها وصل يا حسك إلهي قد بضى إيامات واندي وعدي صلاة كالية وذر البيعة إيبك يقرأ عسك حيلة بإلهي سبحانه وتعالى لكن حيلة هكذا بيسي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله كالصلاة يدين دماته هنفردين دقاق بإلهي سبحانه وتعالى وشقتك وعمل وصلت معها اللفتيسي أي مرة يقول لي سوء عرّوا إلهي عبادة وكالة هي ماشية ذكرك وكالة مرة يقول لما تنا شقتك بلو marka diinteenu waa diin shaqo weey waa amal adduunkii iyo aakhirada labadaba laga shaqeynaa taama kan soo dhaafno qofka muuminka ee iimaankiisu uu dhisan yahay inuu shaqo taga waxa weey waa daafic waxa ku riixaya waa daafic daati weey yaani waa go'aan isagu uu leeyahay iyo aqoon isagu uu rumaysan yahay in amal uu abuuran yahay ma aha wax lagu qasbayo أما ما يعني لو أمر وكم بحنايا أما بقاء وكم ما تكون سمعنا يا لكن وحر الرميسية هي قفك مؤمن كإيمان كيس قدام يهي إن
adduunka inuu ka gaaro sacaado iyo maata wanaag ka gaaro iyo maata qurux iyo raaxo aakhirana uu ku guuleysto jannada Allah subhanahu wa ta'ala inuu guuleeyay labaduba inay ku xidhan yihiin inuu shaqo qabto oo waliba shaqada uu qabanayo uu wanaajiyo haddii amalka aakhira tahay shaqada aad qabanaysaa inay shaqo wanaagsan noqoto al-itqan في العبادة نبينا عليه الصلاة والسلام حديث معروف كمشهور وكذا هذا أركان الإسلام الشنطة هي أركان الإيمان كاللحدة وهالنبي قالوا كلا كشرح على الإحسان وحلا الإحسان وكان النبي قال له ويدي أخبرنا عن الإحسان ولو كنت شرير النبي قد ويدي عليه الصلاة والسلام النبي قال كجوابي مو كجوابي نوع عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي سبحانه وتعالى وحاولي الرسول عليه الصلاة والسلام فسروا لي إحسانك معنيه وحوي أن تعبد الله كأنك تراه إن إلهي سبحانه وتعالى عابده سيدو يعود إلهي أركيسو يعني أفرسو إلهي واحد عابده سيدو إلهي أركيسو هداد إلهي سبحانه وتعالى أركيسو سيدو عابد إلهي سيدو عابد إلهي بيس ويديس إلهي أركيسو يعني ما كان سلاده دكان انه شيطان بسو حاضريو خو دكانكي يا صاحبدي يا شيكدي maanta iyo waxa loo xibku ku soo xaadirinaya waa tijacesanaysa waa muxuu haye waswaas ba ku jira laakiin hadda Ilaahay arkaysa subhanahu wa ta'ala hor taagan tahay dareenkaaga oo dhan uu sugnaan lahaa Ilaahay subhanahu ku xidhnaan lahaa wad wanaajin lahay sujuud wanaagsan iyo khushuuc wanaagsan iyo maad qalbi wanaagsan ayaad la iman lahay مر والبا واحد كنت كتاب وعبادتها اعبد الله كأنك تراه maxay yiraahday adigu aad arkaynin oo awoodaada Ilaahay ku siiyay kumu suuro galnaa Ilaahay aragto Ilaahay saa ku arkay subhanahu wa ta'ala taa macnaheedu waxa weeye al-itqaan fi al-ibaada inaad Ilaahay markaad caabudayso amalkaaga wanaajiso way taas baa looga jeedaa alla caabudayso amalkaaga wanaaji daad tukanayso daad soomayso daad sadaqad bixinayso haddaad dhikri Ilaahay ku jirto haddaad amal kala wanaagsan qabanayso itqaan baa loo baahay si intaaj u yeesho marka wanaagsan oo ah Ilaahay intuu aqbalo inuu ku laablaabo marka leeyahay al-10 bihasab amthaliha al-hasanat bi10 amthaliha hasanatu wa tamanna ila 700 ضعف ila al-'af kathira tadawba qolo jeer baa laablaabaya waa laga sii badanaya waxa kala fogeynaya laba ruux isku ag tukanaya oo safka ku wada jira ayaa laga yaabaa midna salaadiisa in 10 lagu dhufto oo 10 jeer loo laablaabo taa Ilaahay baa ku deeqay subhanahu wa ta'ala midna 700 jeer loo laablaabo ayaa laga yaabaa laba shakhsi oo dhinac isku haya waxa kale kixii salaadooda kani qalbigiisu waa maqay jasadkiisa jooga xilaa aqriya hadii la weydiiyo ma garanayo ragcadaha inta la marayo ma xasuusna waa taabici gaafil iska socdo way kanina waxa laga yaabaa markuu salaada Allahu akbar yiri ilaa markii imaamku ka baxay salaam naqsiga gaarayo in qalbigiisu Ilaahay ku xidhay khushuucdiisu taam tahay aayaadka uu maanta dhasanayo la socdo kuwa akhriya kuwa imaamku akhriyo oo macnaysanayo dhaminayo adkaartu akhriyo oo dhaminayo khushuucdu ku galay inuu ka baxaa laga yaabaa salaada labadaas salaadood isku mid maaha maxaa yeelay midna itqaan baa lagu sameeyay waa la ilaaliyay midna lama ilaalina salaadu bay ahayd qafoofa dabeedna aqbalkoodii waa kala duwan ajrigoodii waa kala duwan waa amal mutqan oo la ilaaliyay oo intaaj fiican soo saaray 700 jeer ku qaxay iyo amal aanad itqaan ku sameeyay khushuuc ku sameeyay oo ilaalinin oo dabeedna muxuu ahaa yaani laga yaabo amalkii natiijada ka doonaysay inuu keenay marka waa tusaale ku soo qaadanata qofka muuminka marka uu aaminsan yahay amalka mutqinka ah ee wanaagsan
inuu yahay amal ilaahay ka doonaya subhanahu wa ta'ala adduunkuna waa la mido marka si wanaagsan u shaqayseed amalka maskaxdaada iyo muruqaaga iyo waqtigaaga geliso natiijo fiican ba ku soo baxaysa dad beeranayso oo aad yani juhdi iyo dadaal geliso oo u dadaasho oo dhex joogto oo ilaaliso mid fiican baad goosanaysa laakiin hadda tana baan beeranayaa oo dadna waad maanta waxba ka qaban maayo mid kaaga soo goy maaya marka amal kastoo la qabanaya muxuu u baahan yahay itqaan buu baahan in la ilaaliyo oo la wanaajiyo oo la qurxiyo si uu mid wanaagsan iyo natiijo amalkaas u yeesho qofka muuminka ah عملك وقبنايو وين إلهي كبقى سبحانه وتعالى سيد قاني وناقو قسمي وعن نبينا كسرنا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إلهي سبحانه وتعالى وجعليه قديم مدي كمده والشقاق قبنايو عمل قبنايو عمل كأنه وناجي يا إلهي تعلي سبحانه وتعالى عمل كأنه ناجسو إلهي تعلي مركب واحد إلهي تعلي وين تعلاته وين ذقاتها إلهي سبحانه وتعالى كوئي عملك شقد الله قبنا إياه وأمانه إلهي كوئي يسالك يشو مثلا بني آدمك ويسو شقيا شقالات هاي أما الدولة دي حفيز دولة كشقاء أما الشركة دي بني آدم كلا يماتي قارة وشقاء أما فرصة يقام بها وأنت علام لقوك كانوا عرب تاسي وانا جيدها لقاد يحقاكين تيدا لقاد دولية أو تكشقاء نيسا وحالي على وحاصل هو أمانة دا عدة كائجس أنا وإلهي سبحانه وتعالى عدة كائجس كا حساب نيسا الله سبحانه وتعالى هدي مركا عمل كاعد هيسو أد إلهي كبقته وأد خوف عبسي إلهي سبحانه وتعالى كجرت أد قبطه وحوي عمل كانوا وناسنان النوى بدبادي أمانة دي كسارين نوى جدته هذا أمانة جدته إلهي بقى كجعلني سبحانه وتعالى هدي لكن أد إلهي عبسي سكابح أو إلى قف من هذا كأكو أرك ما يعد ما كهلك خيامك كنتو أو ترى هذه دولتها هي حكومة عاد كم بحسته وهذه بني آدم كانوا شقين يسوق عاد أرجيس هسكايكتو وهذه وحلقود دي بس سميقان تهاي وهي كمان لهاي كارلينتو لسكو ماتي لسكو يعني لسكو أمنية لسكو قاعد كارلينتو وخيانة قف قدوح خيامينا وقف لها خيامي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم لكن المؤمنين تهوا إلى إلهي سبحانه وتعالى إلهي خياميننا رسولك سبحانه خياميننا أمانتنا خياميننا اسكب علي أنت صغير مركز الروح مؤمن كاي وحقوق قبنية عملك وقبنية وحقوق هاي إن إلهي كلا حساته سبحانه وتعالى عملك النوع دونها نظر dad macallin tahay oo wax dhigayso waa amaana qof banaadana lagu dhibay wax ka dhigto hadaad kuuli tahay dad wasta tahay hadaad najaar tahay hadaad dhakhtar tahay hadii aad muxuu hayaan ay amal banaadana loo qabto adeeg kasto banaadana loo qabto waa amaano ilaahay subhanahu wa ta'ala ka xisaabanay amaanada ilaahay ka xisaabinayo inaad ogaato inay marka tahay amaano laga xisaabinayo ilaahay kaaga dambeeyo oo ilaahay ka baqataa la doonaya si amalkaadu hagaajiso mid labaad baa jirta waa nabiga sallallahu alayhi wasallam inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay shayga ihsaanka la yiraahdo amba itqaanka iyo wanaajintu shay wal oo la qabanayaba ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu amray in ihsaan iyo wanaag laga sameeyo shay wal oo la qabanayo waa xadiiska inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay shay walba ihsaan ba ku jira laba shay oo aad leedahay xoog kuma jiraan ihsaan kuma jiri karo ayuu nabigu tusaaray nagu soo qaaday calayhi salaam laba shay wixii kalena ka sii cajiibsan ruux banaadana marka qisaas loo dilayo ee dilku waajiba laga jarayo miyaad leedahay ihsaan ba ku jira naftaaba laga jaraya
neef xoolaa markaad gowracayso ee doonaysa inaad gowracdo miyaasleeda ixsaan baa ku jira naftaa baa laga jaraya soo ma waa labada meelood naftooda soconaysaa dee qofkana waa soconaya kana waa neefkana waa la gowracaya labada waa dhimasha ku qoran yihiin laakiin nabigeenu wuxuu ina faray calayhi salaatu wasalaam xataa marka dhimashadaasi ay socoto in dhimashada la wanaajiyo haddoo fiirso nolol hadalkeeda in dhimashada lafteeda la wanaajiyo in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faidaa qataltum فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته النبي عليه السلام شيء والله إحسان باكو جرى النبي عليه السلام اللي وناقي هذا قفد لسانه دلك واجبه وقصاص لو نفط لقى شرعيه دلك وناجية دلك وناجية بين الله سبحانه وتعالى بمعنى هكسر عننا سوى ناسان وقشر نفتوي ويدك الدل يدل وكقريه هاي دلك هو ناتشيه بين الله سبحانه وتعالى دلك هدي قفك الدل هو ناتشيه بين الله سبحانه وتعالى هذا النف قورع عيسانا قورع وناتشيه متكين مديس هسيا فايستو مديس هسيل لسو نف قورع عيانا هو راحيه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم waxaanu ka qaadanaynaa halkaas mar hadii wixii nafta laga jarayay baa leeyahay nafka jarka u wanaajiya maxaad u manaysaa loo shikale ay shay aad qabanayso amal kasto qabanayso hadaad kabtolayso iyo hadaad gaari sameynayso iyo hadaad warshad sameynayso iyo hadaad maxaa wada sameynayso amal kasto aad qabanayso ihsaan ku darto way diinta ina farayso waa iimaanka ina faraya amalka ina wanaajiyo si markaa yaani midhagu u wanaagsan intaas ku wanaagsanaad laba shay ayaa qofka muuminka asal ku ah markuu iimaankiisu shaqeynaya hadii iimaanku laga khalkhalo oo wax kala soo dhaxgala ma si wata soo si kala weey amba la soo galo amba ay soo gasho amba alla ka cabsi la'aan soo gasho hadii wax leexiyaan iimaanki saxda aha marka waxa soo leexda laakiin marka iimaan laga hadlayo ruux muumina oo ilaahay ka baqanaya oo kii ilaahay doonayay marka laga hadlaayo laba shay muuminka asal u ah amarka ku qabanay لبضع شيء هدين لواية عملكم هجال الأمانة والإخلاص أمانة وين يجي هدي قفكم مؤمن كأمانة وكتكتو أمانة هدي كم بحضر قفك عمل كسر رومي هجاج يمشي وعان اسكو هاي السنة اسكو يريان الناس اسكو حرمان الناس اسكو حوا حكلام أمانة خلنا بعض أمانة دي بين غيراتي أمانة دي بكره بحضي عمل أمانة وينا عمل ما نقولين قضب كلامنا وحوي أساس كواهي الإخلاص والخوف من الله تبارك وتعالى عبس إلهي لبضع الشيء حتى يقف في كتشران عمل كيسوها جاجي وحضناها نقضي هذه السلبات ماشي كبحان أما متكبحوا عمل جاجي يمشوا وحين كلاماتي حكيت لهم دونا استقامة هي توصنات الشيء اللي هذا يراد كأي كل هذا هاي عمل وناجنتي إنتاج استقامة معناها حوي قفك أو كل رقم كتاب كيله وحي لهي كحارة نمين حاران كدقة حاران ويقانا وحي لهي مات أمرنا واجب ويقانا وحي لقدوني أنا ومات يعني وحل الله يمنع يغفلنا إياه التزام بالهذا استقامة لله استقامة توصناوي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كوا يلي ربك يا إلهي أقلاضي دبنا أمر كيله كتوصي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ملائكة ربك سودكته ما كان نفسك بعيس ها عبسلنا أمرجوننا أنك صاحبنا أهلكينا الدنيا آخرة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنة دينكم بشارة استوى وأمرك سكراتكم هي أوي من الملائكة ملائكة الرحمة وتماضى وأكوي بك أدوية كنا وراءه استقامية توصنا يش أيوة طريق الله سبحانه وتعالى عكس صاره والنادر ثال الله حراه إلهي هذا لك عشتنا وهلي ما عصلا استقامة داسي التزام كالدين يقفك ويش هي معاصده وكفك هذا قفك هذا ممكن أن تعصي يشوف هانا يمد قوة ديسية ضاقة ديسية
awoodii alla siiyay subhanahu wa ta'ala ayuu qofku xafidanaya markaas marka awoodda ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay kuma sarfinayo ku bixin maayo waxaan ahayn amal wax soo saar oo naafica fi dunya wa fil aakhirah ima qofka hadduu aan balwad lahayn oo sida Allah subhanahu wa ta'ala maanta amri yeelayo cibaadaysanayo oo awoodiisa dhamma wax xafidan dad balwad lahayn aba qaad cunayn aba wax kala cabaynin aba aanu maanta yaani waqti iska luminaynin waa qof kaydsan oo quwadda alla geliyo oo kaydsan tahay oo maskaxdiisa caafimaad qabto oo dareenkiisa maanta qalbigiisa caafimaad qabo oo si fiican u seexanaya oo si fiican soo toosaya oo quwad ku jirto quwadda alla siya ku jirta quwaddaasi markaasi waxa weeye ilaa qof Ilaahay ka baqanaye meel wanaagsan buu gelinaya aba diin iyo cibaadaha geliyo aba amal wax soo saar laha geliyo aba naftiisa ha ugu daneeyo aba ummadda ha ugu daneeyo waxbuu soo saaray marka kasbigu u yahay waxa weeye waa ribix iyo faa'iido naftiisa u yahay oo naftiisa anfacaya oo amalkiisu wanaagsanaya iyo dantiisa gaarka awlaadiisa iyo reerkiisu wanaajinaya qofka haduu fayow yahay multazim iyo ma istiqaamo leeyahay mujtamaca iyo bulshada ayuu wax ku taraya aqligiisa iyo cilmigiisa iyo waqtigiisa ayuu ku hagaajinaya ku kala hagaya nolosha caamka oo dhan wax ka taraya marka qofka muuminka multazimka ee mustaqimka ee toosanay waa kayd umada u yaalo way umada buu kayd u yahay waa naafic waa qof anfacaya oo naftiisa anfacaya oo dantiisa reerkiisa anfacaya oo bulshada anfacaya qofka laakiin isagu aan naftiisa ilaalinin ee iltisaamka iyo toosnaanta aan yeeran ee naftiisa ka adkaatay balwada qaadato naftiisu dayacay oo reerkiisa carruurtiisu dayacaya oo bulshadii uu khiyaameynaya dayacaya wax alla yaar wuxuu ku filan yahay ummadda ugu filan ma jirto culays ku yahay ummadda qofka markaas marka iimaanka iyo amalka aba iimaanka iyo shaqo wanaajintu halkaana way ka soo galaysaa qofka hadduu iimaankiisa ilaashado oo diintiisa ku toosnaado iimaankaas wuxuu anfacaya in qofkaasi qof nool noqdo waana aragteen dadka yaani aan wanaagsan ee toosan mustaqiimiin tahay kaanita ummadda ka jira waa garanaysaa dadka balwadu loo satayna yaani isaga laga warwaraya tan ugu dambeeyay qof aqli laha oo karti laha oo raganimo laha oo codkar aha oo maanta laga yaabo in bulshada ama cidda uu ka dhashay ay maanta farta ku fiiqaysay ayaa balwada qaadanaysaa oo meel damo ka dhacay iyo wuxuu ku filan yahay hadaba la isweydiinaya ma jirto mid laga yaabo in maanta laha waxba tari maayo ayaa markuu diinta Ilaahay ku toosnaado ayuu noqonayaa kii wadda anfacay hayra quwadii diinta ku jirta wanaag baa ku jira marka taasina waxa weeye waa arrin aad iyo aad muhiim ah inaga soo gaagaamin doona insha Allah ta'ala qofka muuminka ahi amalka wuxuu ku wanaajinaya wuxuu garanaya qiimaha waqti waqtigu qiimaha uu leeyahay garanaya wuxuu garanaya in Ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiinaya qiyaamaha umrigaaga maxaa ku dhamaysa waa su'aal naga horeysa qofka waa rumaysnaada muuminki in qiyaamaha lagu weydiinayo umrigaaga yaa ku siiyay maxaad ku qabatay saacadahan ku dhaafaya maalmahan ku dhaafaya bilahan iyo sanadahan iska lumaya waliba aad leedahay waqtiga la dagaalamaya oo shax ciyaarayso oo turub ciyaarayso muxuu ahaa yaani qayilayso meelaha ka sheekeynayso aad leedahay waqtigaas ku dhaafinaya waqtiga wax dhaafiya ma waqtiga marka hore waa amaana alla ku siiyay qiyaamahana waa laga wareysanaya maxaad ku dhameysay waqtigaaga su'aalku waa ka wareysa mar labaadna noloshaadu waa waqtigaaga haysataa umrigaaga ma wax kala saacadii aad dhalatay ilaa taad dhimanaysa inta u dhaxayso ma haysataa soma wax kala ma haysataa saacad ka goday lagu soo bedelay ma jirtaa Soomaaliya nawar mahmaana habeenkii xalay hay tagay baynaan waxa u jeeda soo noqon maayo way habeenkii xalay hay tagay baynaan yaani ma soo noqonayo hadawna waqti kaala ma lagu siiriyo ma jirto dhalinyarada kubadda daawata ma la taqaanay waxa kubadda la ciyaarayaan ma sagaashanka minute haddii laba isqabsadaan ba qaar kufaan ama yara waa idin joojiya kamarada Soomaha idan hadda badda daayac baa la siiyaa 2 daqiiqo 3 daqiiqo ayaa lagu dara ciyaarta miyuu baraas mid badda daacilay rokibas markuu yimaado badda daayac ma leh ya intaas waa iska ciyaaraya waan hordeen aniga waxa lagu daro ma jirto badda daayac ma jirto وقفك عصب دونا ما كل ما نيو لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكون من الصالحين الله ما لي كادي إير أنا صدق غير كجارسيو أنا عمري أنا شقيسته مير ما لي كادي وقت قام كانوا لو منينو ee maqaxya ka sheekeynayno ee leenahay waqtigu fara badan ama inaga tago waxa iman doonta laxdad iyo daqiiqad aad leedahay halay koobiyo oo laga yeelin wana yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha marka ruuxa muuminka wuxuu yaqaanaa ama og yahay ama rumaysan yahay in waqtigu xisaabsan yahay in waqtiga la weydiinayo saadarteedna waqtiga ma dayacayo waxa laga soo wariyay Umar bin Abdul Aziz rahimahullah رضي الله عنه يقول إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما همينك هي معناته عليك عشقية يعني أنا إياك عشقية يسوي همينك هي معناته عليك عشقية سيك عشقية يعني دقا وعمر قاعد يقوي ويكون جوجينيا ما تعدي بننا ويكون جوجينيا همين هي معناته سكند بتقول مع عمر قاعد معني عليك عشقية أدونا كشقية سو همينك هي معناته لكن أدوكم لقاء شقيادة شقيسين وإذا كور سأسكين قوي بيسي ما كنت بسكت بارد سعودي ولا قاتقين عباداتكم عبادات الأولى الالتزام والله بديع الشقادة إيه وحسو ساركة ما وحي كنتها عرقلات بس وحي وتفائيده قد كقاربة وحي وحي يستعد ما كعبادة الله بديع قفك اسكا ماتي عبادة مساجك اسكا الصومة اسكا مارتي صلاة وقتكooda ilaaliya shaqada intuu ka baxo soo tukanaya in waqtigii maad yaani ku ciyaaraya shaqadii baa haysta shaqada ku ciyaaray oo leeyahay salaad badana shaqadii uu ka ayo luminaya salaadii cibaadada marka salaada ma dhibaato ku tahay cibaadadu intaajka iyo soo saarka iyo shaqada ma dhibaato ku tahay mise faa'iido u tahay dadku waxa u yaqaanay faa'iido dhibaato ku tahay qofkaana doon garanayna qiimaha ku jira markuu shaqadii lagu jiro meel fiican asal la aadaamay ee qofkii muuminka salaada u baxo ninkii shirkada lahaa ama mas'uul ka ahaa ee aan isagu hawsha ku jirin wuxuu leeyahay salaad badan hadii uu shaqada wato sama waa kana isna waxa la radaa waa wax soo jireena weeye nin baag ayaa geel jiray hore reebigi ayaa salaad badnaa baa leeyahay dabeedna salaada uu ilaalin jiray geel uu raaci jiray salaada uu ilaalin jiray mid kale mala walaaliyeen ama wuxuu ahaa meel ehelkiisa ayaa markaasi waaninaya war hebel oo geela salaada ka daabo geelas salaada ka daabo oo daa salaada ka daynaynin taafiidka ka daabo carabaha oo maqribkii waqti iyo carabi halka dhiganaya hadaa ka daynay buuri taa ka daabo carabaha fiidka oo hadaa ka daynaynin nunuuda ka dambaysa ka daabo nunuuda ka dambaysa maxay لما وقت كارتي يتصبيح دي عادي هكذا سيجي لي سالوين وقت صلاة بنتو كان أيوه وهو هيستعين ونك حول ضايعي هاي ودائما حولها الله مني مركب مصدع صعب سواء سكرة حقيقة وحي يقفك عبادة سنية العبادة كد دالية وقفك وقول لحج على بدن عمرك وقعدك هاي إنك السلادة كنت تقول ما هل ما كله ميسر أبدا كله ما يسوي لكن إذا تكسر حدود سكر شيء كتبه هساوي تجي أي جيرو كله بيان صدق الله وحوله كله بيان مثل قيلات تجي مع شقة ضياعية لكن عبادة سنة والصلاة ضبحها شقة ضياع ماي هصنع هو مكان عبادة وحي صرت وحتر بيقطعي دي إلهي كسيوم شقالك وتو كان عبادة سنة إلهي كم هذا سبحانه وتعالى وهي أمان ليه إلهي بأمان سحجية أن تادي حجين دونه إلهي يبو إلهيتيسي أن تادو إلى الدورة وحصوصار بيها الدورة وحكسوك بقبيني يا بارك الله فيكم توكلك أيها ينو فهد الله وقال إلهي على ثلاثات معنى إذا ما يالله شقيسان باه إلهي على ثلاثات ضد قرد كفهمه oo maatay iska fadhiya Umar bin Khadaab waqtigiisii ayaa wuxuu arkay maatay in masaajidka xilliga kala shaqo tagay iska fadhiya markaas uu maxaa ku dhigay waqil hore kala shaqo tagay markaas Ilaahay baa tala saarto Ilaahay baa irsaaqaya qulbu la sabaxay Umar wuxuu yiri diinta anaga ceebeen oo shaqo tag buuri Ilaahay inuu sabab dahab ka soo daadin waad ogtahay orod shaqo tag buuri oo shaqo furo markaas shaqo soo hesho Ilaahay caab يعني خلط diinta ka fahmayo
in la fadhiisto halka la iska fadhiisto ilaa uu shaqo tagi maayo ilaahay ma ku kalsoonay waa hadal macaan oo wanaagsan laakiin xaqiiqadii diinta ma ilaahay subhanahu wa ta'ala ayadin ka qeeyay famshu fi manakibiha bari wadana idin fara socda ba ilaahay subhanahu wa ta'ala hay la wada way fadhiista maxay ilaahay wada siinaya saajida buuxiyo iska fadhiista ana arsada idin keenaya maxay ilaahay wada way subhanahu wa ta'ala famshu fi manakibiha wa kullu min rizqihi bari صلاة التكذا جمعها فاسعوا إلى ذكر الله ما تنتشر في الأرض بارد وكلا يا أحطانت توكلكم عنه سوى حوائي إن عملك لا تماضوا أسبابك لا تماضوا ضبطنا هذه الله ترسلت معناه اسمها أنت تكفر يستطيع سياحته إن تإله ما ترسلت ما نبي عليه السلام صحيح سوى نبي عليه السلام فرديا وصحابة الله فرديا ayaa reermiyo neefkeena wata ayaa nabiga subaad ku soo beeray intuu neefkii ka degay oo gaadidka labaad halkaas ka sidaayay ayuu muu dabrin meel kuma xigeed kuma xidhin uu sii daayo xalqadii nabigu fadhiyay oo soo fadhiistay suuqa waa arkay neefkii sii socda markaasna suuqa waxaad ku xidhin neefku xidhan weeyday gudi hadu xidhan weeyday wali ya rasuulullah ilaahay ma tarasal ilaahi ayaa tarasal النبي يقول عليه السلام اعقلها وتوكل على الله صوت دبر قوله بدا إلهي وترسل أبو أصابتي لك عليه لكن ما سيديني يا إلهي ما ترسل صحبه ولا فهمتها حديث باكرة لا حديث بلس فيه آيات رسول الله آيات إلهي ترسل حديث باكرة ما كان سوق هذا النبي عليه السلام يقول لو توكلون على الله حق توكله لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم ما يرزق الضيف انتصر سوقا هذا إلهي ترسى على الشرطة إلهي وعيدين أرزاق لها سوى شمبرها وأرزاق شمبروه كيد ملها وقال بريس ملسية لما لها يسوع شقتك عصمة إنه قريها بسيب لبسنا يوم كسر هذا ورورينا هذا يسيح رسالة هذا ورورينا هذا إلهي ترسى على وحيدين ترسى على الشرطة إلهي سيد شمبرها وأرزاق ودي أرزاق لها انت عدي حديثك اللي قد أيوه وحالله قادنا إياه إن لله هي كفر الشغل الحديث موسى سعودة سياس فسرعي من نبي عليه السلام تغدو خماصا وتروح بطانب النبي عليه السلام وحي كالله هذا يدو بقيد وقاتيسي وحي سوعة الله شمرو قريوك سوعة الله يقول دريسي كيد مصر قاطع مرح مدكتان أفكون ديو شاقتقان سوحي سوى قاتيسي بحضان عصر كان يدو دريسي لسوهي ها حكا maxaa ku jira marka waxa ku jira macnaha ku jira waxa weey shimbirta gurigeed may fadhiisatay shimbirta gurigoodii may fadhiisteen hay sameeyeen way kala heesoma nabigu ma oran way fadhiistaano buulashood iyo guryahooda wax lagu siiyaa ma oran way kala hadaabuna way kala hadaa kala had waa shaqo كله هو فوق كايت تصاوتيا دبنا كاسين هي حكوسينيا ما كيسو دغتay soo noqota marka xadiiska xagga hore xagga istaakhado hawlana ilaahay ma ilaahay hada tara saarta waa siinaya iska fariisama guriga dad ka seexdo taa ilaahay ma tara saartay deer saaqil meesi wayna dhaqdhaqaaqda tara ma la timaada ficil la timaada maryama oo nabi ciisa mushay oo awood daran oo aan haynin إلهي سبحانه وتعالى يضع فرد قاتين وحسين كان لها أيها اللي وهزي إليك بجذع النخلة جيت كنت مرتي كنت رسنتهاي سيدي واحد الله يسكدك بالي اسكدك سيدي واحد الله يبين له كرت جيت ما له كرت وهزي إليك أنا قاتي بالي ما قاتي كرت أسباب لك علوي تساقط عليك رد مجانية سببت لك وقع ما فيك تبدا إلهي بكسيني سبحانه وتعالى لكن لما أورد يضع مله عدة شيفتا iskata hada iska jiif ilaahay alfa ku guraya laba oran marka diinteena waa diinta soo kala cad wax ku soo gabagabeyna barakallahu fiikum jazakumullahu khayr sharaf iyo wanaag way amalku waana amaana itqaan iyo wanaajina uu u baahan yahay si adduunyada noo anfaco aakhirana noo anfaco marka inaan fahanno in iimaanka aynu leenahay oo inoo dirayo inagu amrayo inaan shaqeyno
iimaanka aynu leenahay bayna amraya in shaqada wanaajino iimaanka aynu leeyahay in faray in amaanada xajino iimaanku marka waxa weeye ee shaqadu iyo wanaajinta iyo soo saarku waxa weeye way istaabaqayaan way iskaalinayaan laakiin macnaheedu ma aha in adduunka laga zaahido oo laga dhaqaaqo oo fara laga qaado adduunyada laba ay noqotay qof adduunkii ka dhaqaaqo yiraahdo yani ka dhaqaaqa diintii ka dhaqaaqa oo diintu waa habsan ee waa shaqo tagay iyo qof qalad kale ka fahmo yiraahdo adduunku waa hawl batay masaajid baan galay shaqeysama maay labaduba waa qalad weeye waxa la rabaa masaajidkana gal oo cibaadayso ilaahina waa fawqtak subhanahu wa ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh